waxaa soo kordhaya qayladhaabta laga jeedinaya abaarta ka jirta qaybo ka mida gobolka Mudug kadib muddo 2 xilli ah oo aan la helin roobkii ay ku tiirsanaayeen dadka iyo xoolaha ku dhaqan miyiga gobolka Mudug. qaar ka mida dadka xoolo dhaqatada ee ku nool deegaanada hoostaga degmada Wisil ee gobolka Mudug ayaa ka waramaya xaalka abaarta ee saameynta ku yeelatay noloshooda, waxayna dalbadeen kaalmo biyo dhaamin ah oo lagu badbaadiyo xoolaha ay abaartu saameysay. Axmed iyo Aadan oo ka mid ah dadka ku nool deegaanka Balli Busle oo hoostaga degmada Wisil ayaa ka waramaya sida ay u saameysay abaarta iyo biyo la'aanta ka jirta miyiga Mudug. dadku biyaha hadda kulay oo biyaha waa jira xooluhu hadda waa baroon yihiin ceeshaas hadda dadku badan aba maantina waa la iska qorrax joogtaa waxa noogu daran biyaha dadka ceelkaas dadku cabaan ilmihii shubana ku dhacay dadkii muxuu ahaa waxa jira marka meel yiraahdo saqiiraan biyaha ka doonaa awal waagi hore waxaana lagu keeni jiray 150 hadda ilaa 300 mar ayaan biyihii iskuulkii hadda meesha waa abaakan meeshaan u yaala ardadii waa dhigataa in xilligan biyo la'aan uu xirmaa suurtagal ah oo biyo la'aan baa ka jirta dadkii waa biyo la'yahay waxaan codsanaynaa in la kala soo gaaro si degdeg ah biyo dadka naftiisa lagu jaananiyo baahida ugu horeysa oo sida degdega aan ugu baahannahay waxay tahay waa biyaha ayaan u baahannahay meeshaan dugsi qur'aan waa laga dhigaa dugsi iskuul way taallaa dadweynuhu meeshaan waa ceelka muhiimadiisu xilligan oo kale waa xilliga jiilaalka waa jiilaalka ugu daran waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan waa biyo. xogayaha degmada Wisil ee gobolka Mudug Maxamed Abshir Warsame ayaa madaxda dawlad goboleedka Galmudug ka dalbaday in kaalmo lala soo gaaro dadka ay abaartu saameysay. laakiin waxaan halkan ugu baaqayaa dawladda Galmudug ugu horeeyay madaxweynaha maamulka Galmudug wadane Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta ee Galmudug iyo wasiirka wasaaradda tamarta ee federaalka Soomaaliya. deegaankaani waa deegaan u jira Wisil ilaa 20 kilomitir wuxuu saaran yahay oo aag difaac uga jira yahay aaga Shabeelow buu ku teedsan yahay difaaca boos buu waxa weeye aaga Wisil u qaabilsan yahay waxa ku nool dad ka badan 300 iyo 50 qoys baa degan deegaankan oo u diyaarsan inay cadowgana gacanta kala diraan gacanna xoolaha ay ku dhaqaan. waxaan codsanaynaa marka dadka noocaas ah kadib ahaan ma qaabili karna anagu awood aan wax ku siinana ma heli karno laakiin jaaliyada reer Galmudug walaalaha reer Mudug iyo wasaaradaha kala duwan ee hawshan ku shaqada leh inay dadkaasi inta awoodooda ay karaankooda inay la soo gaaraan biyo waxay u baahan yihiin cunno. si kastaba ha ahaatee qayladhaanta abaarta ayaa sii kordhaysa qaybo ka mida gobolka Mudug waxaana deegaanada qaar laga soo warinayaa in dadka ku dhaqan ay bilaabeen in ay ka hayaamaan isla markaana ay raadsadaan goobo ay xoolaha uga heli karaan baad iyo biyo. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo.